al-shabaab ayaa maanta laga saaray deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud. kooxda ayaa halkan ka talinaysay sanado badan. magaaladan ayaa u dhaxaysa baxdo oo kala hore dad badan looga laayay kooxda al-shabaab iyo xiindheere oo ay kooxdu ka talinaysay muddo fog. ciidanka magaaladan qabtay ayaa isugu jira kuwa dowladda federaalka ah, kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ee diiday xukunka al-shabaab. ciidanka maanta magaaladan la wareegay waxaa ku jira xertii shabaab xubnaha badan uga dishay magaalada baxdo. kooxda al-shabaab ayaa rasaas aan badnayn riday intii aanay magaalada toos uga wada bixin oo aanay soo gelin ciidanka dowladda iyo midka deegaanka. matoorkii uu ku shaqaynayay ceelka biyaha ee magaalada qaayib ayaa la sheegay inay hore u qaateen. kooxda ayaa sidoo kale miinooyin badan ku aastay deegaanka. al-shabaabkii ka baxay qaayib ayaa fariisin ka samaystay halka la yidhaahdo baaldheere oo qiyaastii 12 kilomitir qaayib ka xigta dhanka xiindheere. deegaankan wuxuu ka mid ahaa labada magaalo ee ay ku yaalaan maxkamadaha ugu waaweyn ee al-shabaab ay dadka gobolada dhexe ku xukunto, gaar ahaan waxa uu xukun doonan jiray maxkamadda qaayib dadka degan qaybo ka mid ah mudug iyo galgaduud. dadka degan magaalada oo cadaada ku xisaab ah waxay maanta tirsanayaan inay shabaab kala wareegeen magaaladii ugu muhiimsaneyd ee ay ka haysteen. hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo aan la hadalnay kadib markii maanta gacanta lagu dhigay qaayib wuxuu adduunka TV u sheegay inay magaalada qaayib muhiim u tahay qorshaha ay galmudug rabto inay isaga saarto al-shabaab. qoorqoor wuxuu sheegay inay sii wadayaan dagaalka iyadoo ciidanka maanta qaayib la wareegay lagu biirin doono kuwo cusub oo ka soo jeeda deegaanada loo socdo hadda. reer galmudug waxay u tahay maalin weyn. waxaan qabanay qaayib oo muddo dheer noo ahayd bartilmaameed rasmi ah. halkan waa maxkamad beenaadkii kooxda. si qorshaysan oo ay galmudug, dowladda federaalka ah iyo dadka deegaanku iska kaashanayaan ayuu ku socon doonaa dagaalku. waxaa la joogaa waqtigii ay reer galmudug ka dhabayn lahaayeen mowqifkooda is-xoraynta, ayuu yidhi hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor. axmed qoorqoor ayaa u mahad celiyey ciidanka dowladda federaalka ah oo kaalin wax ku ool ah ka qaatay qorshihii maanta lagula wareegay deegaanka qaayib, wuxuuna xusay in maalmaha soo socda ay reer galmudug maqli doonaan guulo wax ku ool ah oo la xidhiira dagaalka. al-shabaab waxay u tahay dharbaaxa culus inay lumiyaan qaayib. horey waxay u lumiyeen maxaas, muqokori iyo sooman iyo masaajid caligaduud oo ku yaala hiiraan iyo shabeellaha dhexe. mar walba oo ay kooxdu lumiso deegaan muhiim ah waxaa sii yaraanaya fursadda ay ku sii wadi karaan dagaalka. dhinaca kale, wararka dhanka al-shabaab laga helayo waxay sheegayaan in kooxdu ay daawadii gabaabsi ka tahay ayna ku adkaatay inay helaan dhaqaalo badan oo ay ku maarayn karaan dhaawacyada faraha badan iyo dagaalada dhowrka jiha uga socda. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa hortaala inay degdeg maamulo iyo nidaam ugu samayso magaalooyinka laga saaray al-shabaab si loo badbaadiyo shacabka loogana hortago inay kooxdu dib ugu soo laabato dhulkii laga xoreeyay. maxay kula tahay?